iskuduwaha Wasaarada Caafimadka ee gobolka GABILEY ayaa bulshada gobolka ugu baaqay inay raacaan talooyinka wacyigelinta Wasaarada Caafimadka ee ka hortagga caabuqa safmarka coronavirus Convid-19 si looga hortago faafitaanka xanuunkani. Dr. Maxamed Askar Ibrahim iskuduwaha Wasaarada Caafimadka gobolka GABILEY oo salaasada 23 Maarch qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiska Wasaarada Caafimadka ayaa sheegay in heerka khatarta Convid-19 ay marayso Somaliland meel aan la dhayalsan karin sidoo hadalka u dhigay. waxaanu bulshada ku booriyay in ay raacaan tilmaamaha wacyigelinta Wasaaradda Caafimaadka isla markaana ay xidhaan marada afka kana fogaadaan meelaha ay dadku ku badan yihiin, isagoo sidoo kalena bulshada faray in qofka isku arka calaamadaha xanuunka inaanu tegin meelaha ay dadku ku badan yihiin degdegna uu iskaga baaro. dhammaan dadka waxaan ku dhiirigelinaa wacyigelinaa inay tilmaamaha Wasaaradda Caafimaadka raacaan oo sidii Wasaaradda Caafimaadka tilmaamaheega qof kasta wacyigelinta uu maqlay laakiin ku dhaqankeegi dhammaan bulshada Somaliland gaar ahaan gobolka GABILEY waxaan kula dardaarmanaa in ku wacyigelinaa inay qaataan tilmaamaha caafimaadka oo ah inay gacmaha mar kasta ku farxashaan saabuun amba hand sanitizer ay isticmaalaan, inay kala fogaadaan ugu yaraan 2 talaabo, inay hadduu qofku hindhisaamo qufaco uu cududiisa isagoo suxulka laabaya uu ku daboolo, inuu qofku meelaha la iskugu yimaanayeen bulshada iskugu yimaado ka fogaado gurigiisa joogo hadduuna arrin muhiim u lahayn, in meelaha la iskugu yimaado la yareeyo sida shirarka iyo meelaha dhalinyaradu ku kulamaya iyo hoteelada iyo meelaha aan la iman maadaama qofkii la xanuunkii la kala qaadayo oo Wasaaradda Caafimaadku mar kasta wacyigelinta wato in qofku hadduu iska shakiyo ama qufac xumad yeesho oo goobaha caafimaadka u tago si loo daweeyo bulshadii family-gu ku noolaana aanu dhexgelin meel gaar ah isku kaantaroolo qol gaara. waxa weeyaan tilmaamaha ayaan bulshada ugu wacyigelinaa inay tilmaamaha qaataan qof kasta inuu afxirkii qaato qofku maaskii. afxirku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofku uu kaga hortagayo cununkii afxirkii ama maaskaas qofka siduu yaqaano inuu qaato si uu qofkii ka hortag xanuunkani ka hortag mooyaane waxa wacyigelintaasi ugu muhiimsan ka hortag mooyaane dawo ma leh xanuunku hore waa lagu sheegay dadka iminkana waxaan ku dhiirigelinaa ku adkeynaa dadka in wacyigelinta u dhugan nuglaadaan inay ku dhaqmaan in la iska ilaaliyo dhammaan bulshada gobolka iyo dhammaan bulshada Somaliland. waxaan ku wacyigelinaa inay tilmaamaha caafimaadka qaataan oo maadaama xanuunka imika si dardaro sidii ka dhaqso badan noo soo galay. iskuduwaha Wasaaradda Caafimaadka ee gobolka GABILEY ayaa gaadiidleyda yaryar ee bajaajka iskaga kala goosho gudaha magaalada iyo gaadiidka caadiga ee rakaabka ku amray inay rakaabka ku adkeeyaan xidhashada marada afka si loo yareeyo faafitaanka xanuunkani. dhammaan gaadiidleyda ee magaalada ka dhex shaqeysa sida bajaajta inay isticmaalaan mask aanay dad badan saaraan inay kala fogaadaan yaan ku dhiirigelinaa dhammaan gaadiidleyda magaalada ka dhex shaqeysa amba kuwa rakaabka ha noqoto amba kuwa kale magaalada ka dhex shaqeeya sida bajaajka waxa ku keenaynaa inuu ku dhiirigelinaa inay hawsha u dhagalugnaadaan ay ku dhaqmaan. qof aan mask haysan inay qaadano dadka ay qaadayaan inay mask wada xidhaan goob kastoo la joogo amba bulshada ha la dhex joogo amba gaadiid ha la fuushanaado amba maxay hayday meel xarun caafimaad la joogay dhammaanba waa in dadku isticmaalaan waaye ka hortagga ugu muhiimsan waxa weeye maaska iyo farxalka iyo kala fogaanshaha. Sakariye Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka GABILEY.